dabley hubaysan ayaa weeraro ku bilowday isqarxin waxay ku qaadeen xarun uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabduuli Cilmi Yare oo si weyn caan uga ahaa gobolka Mudug weerarka kadib ayaa rasaas toos ah waxay ka bilaabatay gudaha xarunta uu deganaa Cabduuli Cilmi Yare oo dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo waxaana markii ay halkaasi dableyda hubaysan ay galeen ay toogasho ku bilaabeen Cabduuli Cilmi Yare iyo dhalinyaro kale oo ku sugnaa gudaha xarunta inta la xaqiijiyay 20 qof oo ka mid yahay Cabduuli Cilmi Yare iyo iyo gabar uu dhalay ayaa ku geeriyooday weerarkaasi waa bariga hore ee saakay dableyda hubaysan ee ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarunta uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug weerarka oo muddo socday ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug waxa ay soo gaareen goobta ay weerarada iyo isqarxintu ka bilowdeen waxayna bilaabeen in ay gudaha u galaan xarunta isla markaana ay la dagaalamaan dableyda hubaysneed ee ku jirtay gudaha xarunta weerarka oo muddo socday ayaa ciidamadu waxa ay sheegeen in ay soo aftireen weerarkaasi isla markaana ay dileen kamida dableyda hubaysneed midna ay nolosha ku qabteen sida ay sheegeen Cabdicasiis Cabdullaahi taliyaha ciidamada ammaanka Galmudug gaar ahaan kuwa danab ayaa halkaasi warbaahinta kula hadlay waxaana faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo qaabka uu dhacay waxa halkan ka dhacay saakay ismidaabin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacada 12kii subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelihii dagaalku aan kula galnay maan ka raadinayn Cabduuli Cilmi Yare ayaa si weyn caan uga ahaa gobolka Mudug waxaana lagu xasuustaa in uu halkaasi ku lahaa xarun weyn oo dhalinyaro badan ay ku kulansanaayeen kuwaasi oo qaadi jiray qasiidooyin oo isagu hal abuuray